Kusoo dhawaada asxaabay masasarkii afarta walaal isagii oo qaybtii u dambeeyay oo soo baxday maanta waxaada aan idin socodsiin doono. Masasarka waxa uu noo marayaa qaybta Turkiga 43 sawirkaad u jeedaan waa Harika iyo Cumar. run ahaantii Cumar waxa uu bilaabay shaqo gaangiistarnimo ah, shaqadaas oo baad laga qaadayo dukaamada. kadib batroonigiisa ayaa wuxuu u soo dhiibay lacag lagu qaban rabay macadka Atamaan ama xaafadda ka dhaceysay la rabay in wax looga sameeyo. lacagtii boorso ayuu ku soo riday Cumar, waxa uuna dhigay miis hoostiisa. boorsadii Harika oo baxaysa ayaa waxay ku kahday boorsadeedii, kadibna waxay qaadatay boorsadii Cumar lacagta ugu jirtay. Harika markii xaafadda ay tagtay iyadoo xareysan ayay istiraahday, bal fiiri boorsadaada buugti ma aha wax ku jiro kolley si ay u jilcan tahay. Harika markii boorsada ay fiiriday waxaa ku jirto lacag fara badan. run ahaantii qofka lacagta gacanta ku dhigay waa Harike. sidee talo yeelaysaa Harika? isla markiiba farxad ay la dilaacday, waxayna bilowday in ay aado meelaha shoppingka laga sameysto iyadoon isweydiin lacagta yaale. waxay tagtay meel timaha lagu sameeyo konfeer, kadib waa loo hagaajiyey. waxay tagtay meel lagu sameynayo masaajo, way masaajeysatay. kadib waxay u kacday dhanka iyo taleefanada, waxay iibsatay taleefan casri ah. kadib waxay u baxday dukaan lagu iibiyo dharka noocyadiisa kala duwan. Harika waxay samaystay shopping ku filan, balse nasiib darro dukaankii ugu dambeeyay ee dharka ka iibinayay wiil joogay oo wax ka gaday ayaa wuxuu ku bilaabay sheeko ah in uu yiraahdo aniga ayaa ku dhaweynayo. Harika dhaweyntii la dhaweynayay maxaa ka qabsaday talow? wiilkii Harika markii meel bannaan ah uu geeyay ayuu ku soo jeestay isaga oo arkay lacag inay wado. wuxuuna bilaabay in uu baado gabadhii, isaga oo inuu baado doonayo ayay Harika iska celiday, waxayna la dhacday dhagax meesha yiil. kadib iyada oo taleefanka Cumar ku dhageysanaysay markii horeba ayay Cumar soo wacay. markiina waxay uga qabatay sida dhaqso ah iyada oo ku cabaadayda Cumar waxaan sameeyay dil, nin ayaan dhagax ku dhuftay woona dhacay. inuu dhintay inuu nool yahayna ma kala garanayo, ee iga soo gaar. Cumar wuxuu weydiiyey halka ay joogto, halkii ayay u sheegtay. kadib Cumar ayaa u yimaaday. Cumar markii uu yimid wuxuu la kulmay meeshaan ay yaalaan waxyaabo far badan oo shopping ah iyo nin. waa la yaab.